waxaa halkan aynu taagannahay ku aasan oo xabaashana dayaxa oo uu qabi jiray Daa'uud Garxajis inahaas ayuu magacani ku yimi xabaashana inuu joognaa kalena waxa weeye Daa'uud Garxajis xabaashiisii magaca dayax ee la dhaho tuulada dayaxa ee caan ku tahay magacaasi soo ku baxay taariikh noocee ah ku baxay magaca dayaxa oo ah magac quluub badan markay maqasho ama waxa ku barato ama warkoodu ha gaadhee ku soo dhacaya oo huge oo weyn waxa uu ku baxay berigii hore sida dhaqanka Soomaalidu ahaa hablaha waxa loo bixin jiray iftin siraad dayaxa sidaas oo kale waxa markaa ay ahayd astaan quruxdooda sheegaysa taas ka bacdi waxa halkan aynu taagannahay ku aasan oo xabaashana dayaxa oo uu qabi jiray Daa'uud Garxajis oo buurta naga soo horjeeda imika la yiraahdo Daa'uud oo buurta Daa'uud ay tahay inahaas ayuu magacani ku yimi xabaashana inuu joognaa kalena waxa weeye Daa'uud Garxajis xabaashiisii xabaashana islaantiisii uu qabi jiray waa sida aan ka soo gaadhnay maadaama aanay Soomaalidu ahayn dad qoraal wax ku gudbiya ee ay yihiin dad inan iyo aabihii wax isaga sheekeeyaan dabadeedna oral tradition waa wax awowihii aabihii saas jaranjaro sheekadii ay wadaagu yihiin oo ay taariikhdii isu soo gudbiyeen waa taariikh aanu maqaal ku hayno in sidaas ay wax ahaayeen marka waxaad leedahay magaca dayaxa waa gabadh magaceed weey waa gabadh magaceed weey oo ah Daa'uud Garxajis xaaskiis Daa'uud Garxajisna waxa weeye odayga ay ka soo tafsiirmeen beelaha Garxajis ma Daa'uud Garxajis waxa ka soo tafsiirmay qayb kamida Garxajiska Saciid Garxajis iyo Daa'uud Garxajis baa la yiraahdaa labadaas Garxajiska la yiraahdaa marka waa Daa'uud Garxajis ciida gale ayaad u garanaysaa waxa ka soo tafsiirmay beelaha ciida gale ayaa ka soo tafsiirmay Daa'uud